maanta way taariikhdu tahay 25 bishii 2023 waxaan halkan ku soo gudbinaynaa sanadkii hadda dhamaanaya warbixintiisii oo ahaa shiralkii khasaara naf iyo maal wixii dhacay inaan bulshadeena reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya la wadaagno waxaan halkan ka bilaabaynaa guud ahaan shiralka ka dhacay deegaamada Puntland waa 17 shil baa dhacay guud ahaan way shiralka marka la eego dhimashada sanadkan way ka yartay sanadkii hore sanadkan 54 qof ayaa ku dhintay halka sanadkii hore 78 qof ay ka ahayd dhaawaca guud waa 275 dhaawac culus dhaawaca fududna waa 610 gaadiidka halka ku burburay oo hadda aan shaqeynayn waa 894 gaadiid guryaha lagu dhacay iyo mootooyinka guryuhu waa 51 mootada burburtay oo dhibaatada geysatana waa 507 gaari guud ahaan shirarkaasi waxay ahaayeen shirarkii sanadkii ugu dambeeyay ka dhacay deegaamada Puntland marka loo barbardhigo sanadihii la soo dhaafay waxaad dareemaysaa in khasaaruhu aad u yar yahay taasna ay keentay dadaal badan ay dawladdu bixisay wadooyinkii wax laga qabtay waxay gelin badan oo la sameeyay dadkii wax badan fahmay sanadkii hore marka loo eego sanadkan aad buu shilku u yar yahay waxaan bulshadeena reer Puntland ka codsanaynaa 90% inay mar kasta ay muujiyaan taxadar oo la taxadaro oo shalay waa ogtiin shil baa dhacay 3 qof baa ku dhintay soo karkaar buu ka dhacay tooda dhaxan oo shirarkaasuna maalin iyo habeen way dhacayaan dadku waxaan ka codsanaynaa inay noqdaan dad feejigan oo digtoon oo runtii la socda wacyiga gaadiidka ay wataan iska hubiyaan taayirada iyo intaanan gaariga la kaxaysan gaariga la iska hubiyo ujeedada aan isleenahay waxa yareeya shilalka number 1 waa wadooyinkii burbursanaa wax badan laga qabtay 80% wadooyinka waxba laga qabtay number 2 tayada ciidanka traafikada oo kor loo qaaday tababaro badan la siiyay ciidan badan ay ku soo biireen ciidanka traafikada oo hadda checkpoint kasta gobol kasta degmo kasta laga heli karo number 3 waxaan u adkeynay qaadashada lesson-ka oo ahaa waag hore wax la iska qaato oo hadda noqday qofku inuu aqoon ku qaato oo hada ama qof iskuul ka soo baxay ama qof dugsi ka soo baxay si loo adkeeyo lesson-kana waa la adkeeyay iskaashiga arrimahaas ayaa waxay sababtay in aad moodo dadku inay shilalku aad u soo yaraanayaan sidaa daraadeed waxaan wali codsanaynaa dadka aan lesson-ka qaadan waxaan halkaa fariin ooga dirayaa number 1 dadka aan qaadan lesson-ka inay ku dadaalaan qaadashada lesson-ka iyagoo sifada sharciga u maraya oo ah inay iskuul u galaan number 1 weeye wala naftaadana badbaad ummadana ilaali number 2 wali dadku ma dhaqan gelin lahaanshaha gaadiidka lahaanshihiisu mar hore la bilaabay oo qof kastoo gaariga aa wadato magacaaga ku qoro si aad u yeelato waa wax fudud oo simple ah aad baan idin salaamayaa sanadka soo socda waxaan ummadda reer Puntland ugu rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo iyo intaas in looga sii dhawaado wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh